kulan wacan u wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad alaaba kala socotaan Bahda TV waa maalinimo Isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay 29 bisha 3 Maarso sanadkuna waa 2021 qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gudaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir maxaa ka jira in qaraxaasi uu ka badbaaday xogayaha degmada Daynile oo la doonayay in lagu qaarijiyo wararkii ugu dambeeyay ee qaraxaasi ayaan idin hayaa kooxo hubeysan oo afduub xalay ka geystay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho maxaa ka jira in wiilka la afduubtay isaga oo meed ah maanta lagu arkay xaafadda gubta degmada Daynile ee gobolka Banaadir maxaa ka soo baxay kulankii xalay dhex maray farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ee isaga taabacsan wararkii ugu dambeeyay shirkaasi dhex maray ayaan idin hayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa la filayaa in kulan gaar ah uu maanta la qaato madaxda maamul goboleedyada shanta ah oo ku shirsan xerada xalane ee magaalada Muqdisho ururka al-shabaab oo sheegay in weeraro culus ay ka geysan doonaan gudaha waddanka Jabuuti oo xilligan ay ka socdaan doorashada madaxtinimada dalkaasi wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa beesha caalamkana waxa ay markaasi culays ku saaraysaa madaxweyne Farmaajo inuu baajiyo safar waddanka dibaddiisa uu ku aadi doono dhawaan kulankii baarlamaanka Soomaaliya ee maanta oo la baajiyay iyo xogo muhiim ah oo aan idinkaga hayo kulanka baarlamaanka sababta uu u baaqday qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal idinkuga hayaa wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee Bahda TV ee ku soo dhawaada mar kale saaxiibayaal waqti wacan waan idin leeyahay waa hagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay haddii aan ku bilaabo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhaca qaybo ka mid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir qaraxa oo ahaa nooca miinada meelaha fogfog laga hago ayaa ka dhacay agaarka xarunta degmadaasi waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxaasi lala beegsaday gaari uu la socday xogayaha maamulka degmada Daynile ee gobolka Banaadir Mahad Sharaawe kaasi oo ka badbaaday qaraxaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo shacab ah iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 markaasi qof oo shacab ah oo askari uu ku jiro oo ilaalo u ahaa xogayaha degmada Daynile ee isku dayga dilka ka badbaaday sidoo kale waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo kooban ka sameeyay halkaasi maalmihii dambe ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay weerarada qaraxyada ah oo khasaaraha ugu badan ay ka soo gaaraan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan wararka naga soo gaaraya degmada Daynile ayaan ku guda jirnaaye kooxo hubeysan oo aan heebtooda la garanaynin ayaa xalay gudaha degmadaasi waxay afduub ugu geysteen wiil dhalinyaro ah oo aad looga yaqaanay gudaha degmadaasi wiilka dhalinyarada ayaa la sheegay in uu watay gaari yar oo nooca raaxada ah isla markaana dablay hubeysan ay afduubteen hase yeeshee waxaa markaasi meydkiisa maanta la soo dhigay xaafadda gubta oo ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir allaha u naxariistay wiilka la dilay ee afduubka loo geystay ayaa lagu magacaabi jiray liibaan xabeeb oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho dilkan oo ay fuliyeen dabley baastoolada ku hubeysan ayaa waxa uu dhacay barqanimadii maanta waxaana aad uga argagaxay dadka deegaanka ilaa iyo hadda lama oga sababta loo dilay wiilkaasi dhalinyarada iyo cidda ka dambaysa dilkiisa hase yeeshee bilihii la soo dhaafay gudaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaa siyaabo kala duwan loogu dilay dad badan oo shacab ahaa kuwa oo aan waxba galabsan sidoo kalena waxaa maamulka degmada Daynile ay ku guul dareysteen in ay soo qabtaan dambiilayaashii maalin cad dilka ka geystay gudaha degmadaasi amni darrida ka jirta Daynile ayaa hadda saameysay maamulka degmada oo wadooyinka iyo xaafadaha degmadaasi la mari waayay qaraxyo lagu bartilmaameysanayo iyadoo ay xusid mudan tahay in maanta qarax miinada nooca dhulka lagu aaso uu ka badbaaday xogayaha degmada Daynile Mahad Sharaawe iyo askar ilaalo waheed kuwaasi oo qarax lagu la egtay meel aan sida uga fogeen xarunta maamulka degmada Daynile amni darrida ka jirta degmadaasi
haddii maamulka aysan waxba ka qaban waxa ay noqon doontaa Dayniile meel lagu dhibaateeyo dadka shacabka dhiigoodana markaasi lagu daadiyo maadaama maamulka halkaasi ku magacaaban ay wax ka qaban waayeen amni xumada ka jirta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xalay qaabilay madaxda maamul goboleedyada ee taabacsan Villa Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iyo doorashooyinka. kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaana dhinacyada ka qayb galay ay diiradda saareen xaaladda cakiran ee ka taagan dalka. ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegeen in madaxda Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay madaxweynaha la wadaageen waxyaabihii ka soo baxay shirkii ay la qaateen madaxda Jubbaland iyo Puntland, gaar ahaan qodobada hordhaca ay isla garteen madaxdaasi ku shirsaneed labadii maalmood ee la soo dhaafay xarunta Xalane. sidoo kale waxaa kulanka lagu soo qaaday halka ay marayaan dadaalada lagu doonayo qabsoomidda shir loo dhan yahay oo ay yeeshaan dowladda iyo sidoo kale dowlad goboleedyada. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in shirkan lagu soo hadal qaaday arrinta muddo kordhinta ee laga shaki qabo in uu markaasi ku dhawaaqo golaha shacabka, taasi oo buuq weyn ka dhex abuurtay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqata mid ka sii daraysa waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hanaanka loo wajahayo doorashada 2021. magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa weli ka socdo kulamo gaargaar ah oo looga arinsanayo xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan muranka hariya doorashooyinka. wararka aan helnay ayaa sheegaya in gelinka dambe ee maanta ay kulan gaar ah yeelan doonaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble. kulankan oo ah mid xasaasi ah waxaa diiradda lagu saarayaa arrimo ku aadan doorashooyinka iyo sidii looga sii ambaqaadi lahaa wadahadallada markaasi ka socda Muqdisho. sidoo kale wararku ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac ay isla eegayaan qodobada ay isku afgarteen shanta hogaamiye goboleed iyo waxa laga doonayo xukuumadda. Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa shirkan oo ka dhici doona xeyndaabka Xalane kadib ku dhawaaqi doona in berito uu furmo shirka wada tashiga ee loo dhan yahay ee lagu qaban doona afisyoonikaasi oo ay ku biirayaan labada hogaamiye ee Jubbaland iyo Puntland. dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed ayaa ku soo aadaya iyadoo xalay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu qaabilay madaxda maamulada taabacsan dowladda dhexe sida Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. waa tahay saaxiibayaal, weli waxaan ku guda jirnaa wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye Abu Cubayda ayaa iska soo duubay fariin cod ah oo soconaysa in ka badan 20 daqiiqo, taas oo uu markaasi u diray shacabka reer Jabuuti. fariintan ayaa waxaa baahisay warbaahinta taageerta kooxda ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay Abu Cubayda in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu dalka Jabuuti gacanta u geliyay dowlado aan islaam ahayn, kuwaas oo uu sheegay in ay hantiyeen dalka yar ee Jabuuti isla markaana ay hadda hunguriyenayaan dalka guud ahaantiisa. inkastoo sida hadalkiisa laga dheehan karo uu cadaawada weyn u qabo dowladda Faransiiska, haddana dowladaha kale ee markaasi uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Shiinaha, kuwaas oo iyaguna saldhigyo military ku leh waddanka Jabuuti. guud ahaan qabaa'ilka muslimka ah ee ku dhaqan Jabuuti waxaan leeyahay dhulkiina waxa uu hooy u noqday Faransiis iyo Mareykan. ogaada shacabka reer Jabuuti, dowladda waqtigeedu sii dhammaanayo ee ina Cumar Geelle waxa ay ka mid tahay cadowga ugu weyn ee muslimiinta bariga Afrika. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu suurtageliyey in muslimiinta bariga Afrika looga soo duulo dalkiina Jabuuti, gaar ahaan Soomaaliya, ayuu yidhi Abu Cubayda oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay
in horumar la-aan ba-an uu Jabuuti u horseeday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle islamarkaana ay ku jiraan caburin tii ugu darneed abid sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale Abu Cubayda ayaa qiray in kooxda uu hogaamiyo ee Al-Shabaab ay jab culus kala kulmaan diyaarado uu sheegay in ay ka soo duulaan saldhigyada military ee dowladaha reer galbeedku ku leeyihiin dalka Jabuuti, kuwaasi oo markaasi beegsada goobaha ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab gudaha Soomaaliya. xog ay heshay Bahda TV ayaa sheegaysa in wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ay culays ku saarayaan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda xilligan adag uu dalka ku sugan yahay marxalad aan markaas hore u dhicin. dalabkan beesha caalamka ayaa yimid kadib markii ay ka war heleen in Farmaajo uu qorsheynayo safar dibadda ah, gaar ahaan booqasho uu ku tago Addis Ababa. safarkaasi oo xafiiska Farmaajo uu daboolayo xitaana aysan xubnaha ku dhow ka warheynin safarka madaxweyne Farmaajo uu ku doonayo in Addis Ababa uu ku gaaro. sababta ay uga dalbadeen Farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda ayay markaasi ku micneeyeen inay sii muujinayso cakirnaanta siyaasadeed ee dalku uu ku jiro iyo sidoo kale isku soo dhawaasho la-aanta madaxda maamul goboleedyada mucaaradka madaxweynaha xilkiisa dhammaaday. sidoo kale xogtan ayaan ku ogaanay in Farmaajo uu qorsheynayo safar maalin ama 2 maalin qaadan doono in uu ku tagi doono Addis Ababa, halkaasi uu sidoo kale kula soo kulmi doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo naftiisa culeysyo siyaasadeed ka haystaan gobolka Tigray iyo sidoo kale cambaareenta hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo caalamka oo ku eedeeyay dowladdiisa in ay markaasi adeegsatay ciidamada Eritrea oo xasuuq ba-an ka geysatay gobolkaasi. guud ahaanna saaxiibaylo wanaaganta wararkii iyo xogihii ugu xasaasisanaa ee Soomaaliya naga soo gaaray oo aad kala socoteen Bahda TV.